bulshadu cabashada ay ka qabto ciyaal weero magaca la yiraahdo waa dhimaado gaangiistar ay isu bedeleen waa ka weyn yihiin ciyaal weero waxaa dhibaatada haysata kamida wiil iyo aabihii iskula jira weerada waxaana dhibaya cunugaad soo qabataa oo ciyaal weero ah oo waalidkii kulleeyahay cunuga iga xiran haddii cunugeedii la soo xirana waa soo jirinaya markuu gurigeeda joogana waa ku dacweynayaan waxay leeyihiin dhibaataan haysata waa dhibanahay waana la dhibaateeyaa waxa ay ka cabanayaan waa ciyaalkoodii haddii la soo xirana ayaga kama hay karno waxaan leenahay waalidow ciyaalka ha soo daba kicina haddii la soo xiro haddii kaleto adinku meel geysto xanaanaysto ka celiya ummadda cid u kor uga timid ee qaybtan bari dhibaato ku haysaa ma jirtee waa ilmaha ay dhaleen waalidka cabanaya ilmihiisi waa bacdamaa waalidka cabanayo ilmihiisina uu ka cabanayo cawadana uu soo hooyanayo inta dadka soo dhaco soo dhibo birina waxaa lagu dacweynayaa la leeyahay shaqa ma jirto habeen maalin aan taagannahay ilaahay ayaana ajir uga rabnaa ummadana sharcigeedaan rabnaa mas-uuliyaddana saaranaan gudanaynaa laakiin waalidka cid allaya ciddii ciyaal weero la soo qabta soo daba kacdaah waxaan halkan ka sheegaya on uga sheegayaa in lagu dirayo ayada oy kaaba u tahay oy u tahay kaaliye oy wiilkeeda dhibaatada ayadu u horseed ugu tahay saasaan u gudbinaynaa waxaan leenahay wada shaqayntu oon rabaa inaan halkan uga gaarsiiyo waxaan yaabaha aan soo wadaagnay oo kamid aheed mudane xer ilaaliye waxaa kamid aheed dhibaataa dhacday dadkiiyaa cabatay waa ku baxnay ciddii dhibka u geysatay aan soo xirnay ciddii noomaysan imaan saldhigi ma aysan imaana waxay la aaday gurigeeda iyo shir jaraa'id ku qabsato markaasay leedahay waa dhibanahay waa wareey waxaa lay galayay ma imaanayaan saldhigii bulshadu ma dhahayaan maxaana loon qabtay maxaana loon qaba waayey inay saldhiga la xisaabtamaanay waajib u leeyihin saldhiguna u adeego markaas cid dad aan saldhiga rabin haddii qofkooda la soo xiro cibkan ugu haystana dhahaya waxaan leenahay waa ay dhammaatay xaafad kastaa cabashada ka jirta cabashada waxaa ku haya dadka ay dhaleen bacdamaa dadkii ay dhaleen ku hayaan waxaan leenahay ilmaha annagaa qabanayna iyo in kastoo wax dhibta laakiin noo daaya haddaanayna dul taagan yihiin 4 saacayna wacayaan guryahay noogu soo gelayaan xafiiskay noogu soo gelayaan waxay daba socdaan kii tooreyda wax ku dilay kii wax dhacay waxay daba socdaan kii ciyaal weeradaha guryaha u dhacayay waxay daba socdaan kii gabdhaha kufsanayay ayagaa dhalay ayagaana jelinaya ayagaana cabanaya iswaafajinay uga baahan tahan leenahay waalidku ha iswaafajiyo intaas inuu cabto inuu cunugiisu wax dhibo inuu haddii la xiray war sharciga la waafaji waayo isagu soo jeriyo ha iswaafajiyeen waxaan leenahay mudane xeer ilaaliye oon idinka codsanaynaa cid kasta oo qalad geysata ma rabno inaan uga xadgudub ku samaynay inaad noloon waafajiyo sharcigaysan ummadda dib damba nooga dhibanaan rabnaa nala ka leexiyo oo si dhaba noloon kagala shaqeeyo kiiskooda markaan keennana aan wada hadal iyo qaraabo hebel iyo odo hebelaha dhalaya ee dayaa dhashay aan la dhihine nala dhaafiyo waan idinka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad sidaasaana annaguna ku qalbi fayownahay dhiirigelinta shaqadana ay noo tahay waxaan leenahay waalidka markay cunugooda dhibaatada lagu caddeeyo kadib kii soo jershana waa idin keenaynaa naga xidha